goolhayihii xulka gobolka Sool Yuusuf Lambasa ayaa la dhigay isbitaalka. xaaladiisa caafimaad ayaa la sheegay inuu marmarka qaar kooma gelayo in uusan ogeynba wixii ka dhacay garoonka iyo wixii gool dhalinayay iyo wixii shabagiisa gool taabtayba ciyaartan ay haafka hore xaaladiisa isagoo ugu wardambeysay. xaaladda caafimaad ee Yuusuf Lambasa oo kamid ahaa ciyaartoyda Somaliland una saftay gobolka Sool ayaa meel xun marayso waxa uu galay xaaladda caafimaad ee koomada loo yaqaano. haddaba daawadayaal waxaan kula wadaagi doonaa muuqaal looga soo duubay gudaha isbitaalka iyo sidoo kale iyada oo laga warbixinayo sidii ay wax ugu soo gaareen garoonka. haddaba daawadayaal inta aanan kula wadaagin xogaha ku aadan wiilkan Soomaaliyeed ee dhibka soo gaaray faldan marka hore muuqaalka leegaray si uu u baaho bulshadeynta Soomaaliyeed oo xaaladiisa ka walwalsan uu gaaro. sidoo kale nagu soo biiro ka mid noqo asxaabteena adiga oo janaalkeena subscribe dhah. haddaba daawadayaal sida aan wada ogsoonahay waxa maalmihii la soo dhaafay socday kubad u dhaxayday gobolada Somaliland taas oo lagu qabanayay magaalada caasimadda ah ee Hargeysa. hase yeeshee waxaa jira goolhaye caan ka noqday oo lagu magacaabay Yuusuf Lambasa kaas oo ka tagay magaalada Muqdisho. hase yeeshee shalay ciyaartii uu dheelayay ayaa waxaa ka soo gaaray dhaawac culus iyadoona la sheegay in weerar shakhsi ah loogu geystay gudaha garoonka. haddaba waa kan muuqaal looga soo duubay gudaha isbitaalka kaas oo ka warbixinaya xaaladiisa caafimaad. daawadayaal ilaahay caafiye goolhayihii xulka gobolka Sool Yuusuf Lambasa ayaa la dhigay isbitaalka Haldoor ee magaalada Hargeysa kadib markii dhaawac culus uu maalinimadii shalay soo gaaray ciyaartii dhexmartay gobolka Sool iyo Daadmareed. xaaladda caafimaad xaaladiisa caafimaad ayaa la sheegay inuu marmarka qaar kooma gelayo. dhakhtarka daweynaya Yuusuf ayaa isna halkan jooga. dhakhtar ku soo dhow marka hore bal xaaladda caafimaad goolhaya nooga waran. xasan waan dhawahay. xaaladda goolhaya waxna loo keenay aduu ilaa 2 saacadood ka hor isagoo ku jira kooma. runtii xataa dareen muu lahayn oo marka eegto waxaan anagu naqaano qofka dareenkiisa lagu eego la qanjiriyo kale wax allaale wuxuu dareemayaa ma jirto. afartiisa waaxood madaxa alxamdulillah waan ka sawray wax nabar weyn oo ka muuqda ma jiraan oo CT scan ku soo saaray marka maskaxda ka sawray. imika garashana muu lahayn taan kugu daro. waxaan rajaynaynaa marka dawooyin baanu siinaynaa dhakhtarka la dhigaya observation baan ku sameynaa 24 saacadood inuu ka soo rayo haddii ilaahay raahdo wixii jirana aan ilaa subaxii eegno say xaaladiisu noqoto. marka haddii aanu lahayn wax dhaawac muuqanaya ma dhinaca nervous systemka ayaa loo waxa jira wax nabarka wax la brain contusion oo ah maskaxdu inay meesheeda ka dhaqaaqdo. runtii kaas sawirka badanka kama soo baxo laakiin waa calaamadaheedii uu leeyahay. waayo marka qofkii haddii imka saas oo kale xasan adiga lagu riixo aad gidaarka madaxa ku soo dhufato laga nabar weyn inaan madax kaa soo gaadhin laakiin maskaxdu dhaqaaq yar ay samayso meesheedii ay ka dhaqaaqdo. marka qofkaas oo kale kulli in observation lagu sameeyo inuu nasto inuu iska jiifo ayaa badankan lagula taliyaa oo ma laha ama wax maskaxda laga qalayo ama wax kale lama siiyo. haddii barar maskaxda kale uu ka jiro kirina la siinaya. marka taasi imika 90% ay u dhowdahay in contusionkaasi jiro. marka haddii ilaahay subaxii qolada neurosurgeon dhakhtarka madaxa iyo qalliinka qaabilsan ayaynu subaxii la tashanaa wixii ku soo kordha. aad baad mahadsantahay doctor Yuusuf Lambasa. wakaas ilaahay subxaanahu wa tacaala ha caafiyo. dad badan ayaa goobta isugu yimi oo soo booqanaya. mas-uuliyiinta dowladda ilaa haddana arkay waxaa ka mid ah ambassadorka Somaliland ee waddanka Kenya Baasha Cawil oo imika la jooga. haddaba daawadayaal waxaa sidoo kale goobta ka hadlay oo ka warbixiyay sidii ay dhibku u soo gaartay Yuusuf Lambasa iyo cidda ka dambeysay dilkiisa gudoomiyaha kubadda cagta ee Sool. haddaba waa kan isagoo ka warbixinaya sidii Yuusuf Lambasa dhibkani u soo gaaray. isuduwaha ciyaaraha ee gobolka Sool ayaa nooga warbixin doona xaaladda caafimaad ee Yuusuf Lambasa. isuduwa soo dhow. xasan waan dhawahay waadna mahadsantahay. Yuusuf shalay baa dhaawac ka soo gaaray ciyaartii dhex marisay xulka gobolka Sool iyo xulka gobolka Daadmareed. runtii ciyaartaasi markay soo dhamaatay Yuusuf waxaan geynay dhakhtarka isagoo 13 daqiiqo u jiifay dhaawacii ka soo gaaray ciyaarta socod haafkii hore. hase ahaatee markii aan dhakhtarka geynay wuxuu siiyey daawooyin iyo kala jibina ayuu siiyey. xaafadaanu geynay Yuusuf runtii xanuunkii madaxa ka gaaray
oo markii dhakhtarka aanu keenay caawa Yuusuf marna kooma ayuu galay marna magaranaysaa isla maqnaa mararka qaarkood xusuustiisu ma aysan joogin laakiin alxamdulilah marba mar ka dambaysa uu kasoo yaro raanaya ilaahay waa mahadda iska leh laakiin waxyaalaha yaab kale aan magaranaysaa ciyaarta shalay markii ay soo dhamaatay hadda ay kula naga warramayo Yuusuf in uusan ogeynba wixii ka dhacay garoonka iyo wixii gool dhalinayay iyo wixii shabagiisa gool taabtayba ciyaartan ay haafka hore xaaladiisa isagoo ugu wardambeysay taasina markaan runtii sheegnana Yuusuf iyo wixii shalay garoonka dhacay kuwa islaama aysan ahayn waxaana cadaynaysaa in uu Yuusuf miirkiisa iyo isagoo caadi uu joogay haafka hore ciyaarta laakiinse uusan haafkii dambe jooginba sida uu magaranaysaa marka uu isla maqan yahay kale uu ku hadlayo uu ku shoogayo intuu boodo uu marba dhahayo ciyaartii uu ka sheekeynayo marba xaaladdeedii waxeedii marka runtii Yuusuf nin qaran buu ahaa dadka dhan u dhaxeeyo ahaa ma ahay nin kooxa nin gobola laakiin ciyaartoydii la ciyaarasay iyo kuwii wax gaarsiiyay waxay u haysteen nin gaar ah iyo nin gobol ah laakiin waxaan u sheegnaa guud ahaan shacabka reer Somaliland iyo qaranka oo dhanba inuu Yuusuf yahay nin dadka oo dhan anfacaya iyo qaranka oo dhan iyo xulka oo dhanba ee reer Somaliland oo dhan laakiin uusan ahayn nin magaranaysaa lagu tiriyo gobol gaar ah iyo cid gaar ah marka runtii ilaahay caafimaad baan u rajeynayaa haddii alla idmo caafimaad taam ayaan u rajeynayaa ilaahay baa mahadda iskale in uu marba xaaladiisu ay kasoo horeysana waa rajeyn doonaa insha allah aadna u mahadsan tahay xasan.